marka wax yar aan dadka daawanayo wax yar aan u taabto in waxa tahay marka ugu horeysa yani raba inuu soo waxba ka bedela haddana dadka qaar aysan ogeynba inaad tahay nin yani luqad walba Soomaaliya ku hadlaya marka fiiriso kale luqadda Soomaaliga waa maay maxaa tiri waxa tahay marka dhinacan ka eego labada shacab ka gadmaya luqadaha maay maxaa tiriga marka aad rabto inaad ku hadasho kale tee ku fulo isleeda yani inta badan aad jeceshay aan ku hadashay runtii labadaba isku mid yihiin sababtoo ah luqadda maayga waa meeshaan ku dhashay oo ku soo barbaaray oo aan jecelahay oo asxaabteedii ah oo waqtigeyga badankiisa aan ku dhex jiray luqadan kale maxaa tiri ayadana waa mid aan ku soo bartay ayada laftigeeda sidoo kalena mataqaanaa luqadda aan mataqaanaa sida aadka aan ugu hadlo marka labadaba waa laba luqadood mataqaanaa aan aad u jeclahay oo aan ku hadli karo oo aan ku cabiri karo dareenkayga iyo waxaani aan qabo anoo tan aan kaga faa'iideysanayo waxaan aad iyo aad u salaamayaa Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogaan gudaha waa maasanta noo dambeeyo salaanta dib u dhigayna Australia shilkan ka dhacay UK ka furmaya 23 Febraayo oo ay wado dawladda Ingiriiska oo yani lagu casuumay in ka badan 40 dawladood oo caalamka ka imaanaya oo xataa ay ka mid yihiin madaxda Soomaaliya soo kula muuqda marka eegto habka u socdo marshid yani Soomaaliya hajib badan ay ka qabto asleedahay wax badan baa ka soo baxay maadaama maanta in siyaasadana ku daleela sidee ku raadinaysaa shirka marka eegto runtii shirka ajandihiisa marka hore ma cadda marka in laga hordhacana ma qumana laakiin waxaa jira documenti magaalada gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba ku soo yaacay oo ku saabsan shirka oo proposal ah oo wixii laga hadli lahaa runtii Soomaaliya waxaan qabaa aniga mataqaanaa shir kasta muhiim ah meesha ka dhacay laakiin waxaa muhiim ah wax Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto wax kusoo kordhin karo waxaa run ahaantii shirar badan dhacay hadda road map baa socdo wax yiraahdo iyo grow principles iyo mataqaanaa heshiisyo jiro iyo qaab hadda ay la rabo in xal Soomaaliya loo raadiyo oo markaana haysta taageero dhanka IGAD iyo mataqaanaa UN-ka iyo bulshada caalamka Soomaalida ay la socoto marka shirka ka dhacaya halkan London run ahaantii anigu waxaan la soo kulmay mataqaanaa dawladda Ingiriiska waxaan kula soo kulmay Soomaaliya iyo Kenyaba waana ka wada hadalnay run ahaantii waxaan rajaynayaa in mataqaanaa shirkan uu noqon doono shir wax taageeri doono yani road mapkii iyo sidii qaabkii loo fulin lahaa waxaan marnaba mataqaanaa sax noqon doonin shir ka hor imaanayo geedi socodka maanta Soomaaliya isbedelka oo kala guurka ah mataqaanaa siyaasadda Soomaaliya oo looga baxayo marxaladda ku meel gaarka ah oo loo gudbayo marxalad mataqaanaa dawlad rasmi ah Soomaaliya ka dhalato waan filayaa inuu markaa shirka London uusan ka hor imaanin wax badan balse uu taageeri doono in wax badan yani ay ka soo bixi doonaan oo Soomaalida waa run ahaantii waxyaabo badan marka su'aasha aan ka dhaxgalay waxyaabo badan shacabka isla xamaanay jiraan oo ah shaki badan soo baxay shakigaas oo ah Soomaaliya waxa la rabaa in hadda shirkaani lagu qabanayo meeshaani ajandooyin badan ka mid ah la rabo in dib lagu celiyo Soomaaliya yani 50 wixii ka soo gudbay oo ah oo kale yani waxa la leeyahay shacabka isla xamaanayaan ma ba gaarin bas Soomaaliya inay dawladnimo gaar waa in la baraa hadda dib yani dawladnimo waxay tahay in la baraa arrimaha suuqa soo galayo dad shacabka isla xamaanayaan maxaad kala socotaa runtii waraaqo waa jiraan documenti oo mataqaanaa oo papers oo ku saabsan arrintan inkastoo dawladda Ingiriiska aan laga haynin ajandaha Soomaaliya waa noocaan iyo qaabkaan aan oo rabnay aan ahmiyad ku celin mar kale aan laga haynin waxaan qabaa in lagu degdego ma fiicna marka hore oo mataqaanaa dawladda Ingiriiska shaqay qabanayso waxa looga gol leeyahay Soomaaliya lagu celiyo maxkamad maxkamad oo 3 sano ah sida waraaqo ay ku qoran yihiin haddiise sidaas uu fikirka yahay
waxaan qabaa fikir qaldan inuu yahay Soomaaliya maanta qarniga 21aad maaha qarni mar kale dib loo soo celin karo maxmiyad iyo mataqaanaa iyo maamul dowlad gaarsiisanay shacbi kastoo ma tamayso waqtigeeda laga joogo waxaan filayaa haddii saas tahay in Soomaalida kulley waxay u arki doonaan negative يعني مد إنسان قارن دوني لكن وحنا أنا جعلان لهن بلينا عن أتليست عن فير إنه يعني شركة سي أجندياشي اسمه كوره إنتان كور بعيدين مكان لكن ورقاس لقوا السوق لقوا السوق وقفة إن ما حوصل لابانو فود ماركة هود مابka isaga quddiisa ayaa waxa la gelinaya shakiyo badan waxa la leeyahay hود mapka Soomaaliya wali la rabaa in uu si majxaabiyo arrimaha Soomaaliya iyo horumarkaani muqdisho yani waxyaabo badan ka dhacayo yani adduunyada dhan yani banki booqday madaxda caalamka booqday uma raba haddana yani in haddana wali hawshii Soomaaliya qabliyaashii yani waxyaabo badan la soo maray in uu si hayo horey u si dhaqado aan hود mapka dad badan fahansaneen uu yahay wax ma noo jilci kartaa runtii hود mapka aniga Soomaaliya شن بلاد سوماليا جوجي on الساعة كده واجي ونحكي سياسات الصومالية أنا لقول ما يزت في grass root كهذا في سوق حي بركعياشها الله شكل سرادي بهذا ما تكلم قصته سياسيين تيانو كومي وياشي وكرت كي أو ما تكلم يدي أرضي دي جمعها إن بدها صوماليا واحد مدعين لفهم سيء يعني الصعود في سياسات الصومالية ماشي وسي صعودات كحجار وحكاها هستا فكر لكن مشهد مدد إن مثلاً إن سياد عن الله سبحانه وتعالى سعيد بدين هاي أما مجاليها صبايا تكونوا هود مابكا إن مدرسية مركز سوق وقاب في إن لوجب بحلها إن مددي كملجاكها أما نظام كي كملجاكها الصومالي لو عندك سنة دولة كسر تسي وحول بصري ونظام كملجاكها كاس قاب كي لوجب بحلها ولوج لها دولة كسر الصومالية شيء عالمي كده سو أنا بدأت أفكر هو على هذا أو ينقل دولة مثلاً إسكيل إن مثلاً الصومال إن مثلاً سوء عشري سوء براستي ومثلاً بوزيشن دي كل هاي يو هذا عالي مركا رود ماب كل شيء جاي إن وبريتش وموندو لوجو بداري ومثلاً شيء مدري كم الجاكها أو لا هذا يمدري أنا ما هي قريب تذكي مثلاً كقريب قاتل رود ماب بس ريان أما إن بعض بعض تشتي لكن وحن قبا وإسفالو مثلاً إن نسميه كنا وحلو بالجاكها ولي برلمان ما نسميه رود مابك وهو حبها نفتير المشاريع دي السيو إن رهانتي سيدا لوردي قايو رود مابك يعني قاب كاس أيو وصف وانا مثلاً انت بدل ولا تاجسين بجان صومالي وافهمني إن مرة أوصل لابنا بدون هنلابنا أنا بقول فيدرال كه هذا ما تقول الصومال والبلد يسكن بدل فضاهي Soomaaliya haddana ambaha yani dowladii badan walbada habaheen yani 1950 dadku degaw koonfur galbeed oo la iska aaday inta gobol dadku degaw koonfur galbeed Soomaaliya South Westina 1950 ilaa ay hadda inteegiin erahayna umwayba fadaanay federal dowlad gobolada fadaan saas xaqiiqiyaan kala korna as guud ahaan yani madada federal Soomaaliya مايكي لما وضع دنا أنت سومالي دنا كثير ولا فدرال العراق سمارة والله وقتها حاضر كونستيوشن كأيا قبو إن فدرال سومالي كثير جدا إن فدرال كان وحقلنا معها إن و سيد كونستيوشن بو قبو أدون كان لوجر نقمو يعني قبل كستو إسرائيل كارون إسرائيل مثلا ما مسميستان ما ملكاس لما تقنا أيوه ذيك كذا تشتان وحي قاب كي مثلا سوبر ماري لهاي يو وحي وضع قبصان لهاي يسدي خيرات كوجا في إنسان لهاي تشتان وكان ما هالنظام خلدان أما وديعان تام تقنا الصومالي كلا كوجو نمانتا الصومال لان ومامول جرا
puntland waa maamul kaloo jiro maamulkan kaloo koonfur galbeed hadduu jiro isagana waa kuwaas oo dhan mid noqonaya maanta somaliland iyo puntlandna markaad aragto nabadgelyada iyo horumarka iyo mataqaanaa hay-adaha u adeega bulshada ka dhisan yani waa wax mataqaana aad iyo aad loogu farxo oo la taaban karo laakiin koo dhex galo arintun federaalka ee badan Soomaaliya ku horjeeda way beerahayaan Soomaaliya fadaha in la shaqo qaybin Soomaaliya iska diintoodu iska dhaqankoodu iska afkoodu marka Soomaaliya la fadaha in la shaqo qaybin dadkaas fikradaas qaldan ku aaminsan iyona bas yani link qanci karo arrintu federaalka marka hore waa federaalka ma aaminsana macnaha dadka nidaamka ma qaadi karaan nidaam khalad ah because hadda ka hor federaal Soomaaliya ma dhagan marka nidaam cusub wadanka yani in la hirgeliyo la fado waa in dadka marka hore la baro federaal waagii iyo qaabka soo shaqeeyo iyo mataqaana oo la ka bilaabo hoos oo through mataqaana education dadka wacyigelin iyo awareness and مثلا واجي او يشك سياد بري ان دولدي سياد بري واجي او اي كانوا وحي مها نظامك اشتراكي او انت وذاك تطوال بري اورينتيشن لو سميي ان انت وذاك علمي كل سنه لا هي dadka waxba loo qoray waa laga daadiciyay nidaamkii la hirgeliyay waa raacay marka federaalka waa nidaam totally cusub oo Soomaaliya hore u soo arag marka ma islaha macnaha dadka khaldan qaadayaan dadka may waahay ka shakiyayaan dadka may waahay phobia ka qaadayaan sababtoo ah waa in la baraya ka horeeyay nidaamka batooy in la baro yani mara media مثلا ya meel oo gobol kale oo federaal ah in qof hooseedo oo gobolku wada mandala ma ka shaqeeyay korti mana ku nool korti ka soo federaal ah yani may sababtoo ah waa macnaha aqoon laanta oo nidaamka federaalka nidaamka federaalka yani nidaam hadda Mareykan waa federaal ama soo adduunka meel badan federaal ku jira Ethiopia federaal waaye mana kala goosan aga soo marka federal means maaha meelo shay macnaha mishal Mareykan ku weyn mishal goosan waa federal waaye beel kasta hada seet meel kale federal law and Ethiopia dariskana federal waaye ma taqaanaa الآخر سؤال قدام كويت أنا فضل إنك رسول بوا سؤالي ما دام أرنتين بدأ تدور جيت ما يصير لما تصنع بربر بدن يعني رفعت بدن يعني دولة دي أحمدي بربرتي سيركورت اللي بكون سومالي تيج لما تصنع جيت ما هاي سيل بيكره سيركورت السؤال فيلو تاسكو ده وأنا ولا هذا فضل إنه نقبل هون معناها لميد إن dadkii hadana horeeyay oo la tabuusano wadanka hogaamiyaha oo macnaha maba ruusul fan maarifada oo hogaamiyaha hal mar hoona kanaga federaalka yani su'aalaan intaan ka jawaabna in federaalka waqtiga xaadirka hadii la roogo yani Soomaalida may waxay kalsoonidii ku dhuntay oo mis-aaminsan laakiin hadii la arko si gobol nidaam gobolan shaqeeyo macnaha macnuwiina suuqaas laakiin bisharda hadii dawlad dhexe oo xoogan oo federaalka iska hayaas inay markaas jirto soo wixii qaab nidaamkaas waa tan kale Soomaaliya markale ma ka nagay macnaha dhibaatada Soomaaliya haysata bay waa hogaan waaye hogaanka sare ee Soomaaliya 20 sano danka damboy may hayo hogaan oo fashil ah oo ummadana macnaha waran inaan qobana qaabkii iyo dhaqankii hogaanimada macnaha la kuwaay isla markaasna wadaniyadii iyo mas'uuliyadii iyo amaanadii macnaha hogaan Soomaaliya خاصة وقت من الوقت اللي كجرا يعني إني يو معناها لحظة منك ولا فواي بس ما أقدر أقول معناها دليل سندين قدام بيوردم معناها هو كان في يوم مشهور مدحوينه برايم مينستر كي مدحوينه يعني لما وقت شغل ما كنا ما يصير معناها إني يو كأنما إني يو معناها دستور قبنا ومعناها قفكس الشغل يسبوسون معناها انقسام مركم دبعت الصومالية بلنتا يعني سوابها عشاني لكن سوابتهم كوين ومانتا صوماليا إن لكل درنت ما هوجان حموه هوجان فيله وداعته أو capable أو كتلة أقول له يعني ودنية كجرته إلهي دتكوسون كمعناها إنه أفسدوا أو أمانة ذك بحكرة أو جيسين ملاك وأن قادش له فهم سن
يعني dhibaatada gudaha Soomaaliya iyo tan dibadda ku hooyaa sabab fahamsan dadka noocaas oo team ah oo iswadadaan oo xalaal ah ma aaminsana macnaha inay iyo dhibaatada Soomaaliya aad jaro kuraan ummadda Soomaaliyeed geega ma waahayd يعني 20 سنة يعني بسال وين قادم قبيل كي أرجع ولا جزئية جماعات يو إني معناها حركات نصوبيو مجا إسلام ولا كمان ولا أرجع مكان جيجا أنا Soomaaliya كوي درين كده كم يواه ورجام فيل أو والنين قبضه أو كوي نكاسا ونتاجر نكيو سبلون نقدر ما كتاسا ونكترجمنا ما يكفي إنسان درين كاس بدل كأو ده Soomaaliya ديو معناها كتام ويان dadka oo macnaha koonfur galbeed deegaanada waxay waa dadka dawlad Soomaaliya oo qaran ee dhalata dadka ugu horeeyo ka faa'iideysan dadna leeyin deegaan leeyin xoolo leeyin beeri leeyin waqti leeyin geeg wala kaliya kuma qomay waa in dawlad mataqaana cadaalad iyo xurriyad iyo mataqaana rabitaanka shacbigaas مثلاً أو كترجمة سنين من الكتابة وأنا معناها إذا تاجرايا والكلمي رهانتي ما يأمن سنة حلقة Soomaaliya مدة بدن لكن ما يلقى ذلك تحكي حلقة سداع عدا معناها ويدي فدي كتور فدي sacrifice فدي تحكي بدن أصول أو مثلاً إن بينتي ما دام أديك هاي إن أنت بدن فكرة Soomaaliya تروح بدن فكرة وهبين إيمان يعني سجلوا يعني بدن عندنا وكرسوا إنه شعبكي Soomaaliya كلية وكرسوا يعني أنت بدن هتكون دوتها اللي يقدر منها كانوا يعني مدحنا أو شرحي وأنت بدن يعني دولة الشيء وحياة بس كتير سنة عندنا هذا ورئيس يعني مركز سواء أو شاكين هتاجين كتير سنة كمان أنت شرح الشعب والله بدي شعب Soomaaliya ما يمحط لي من لبض الوقت أو كل شيء حكون باقي للشعب كا حكون دكتور دار لي الشعب يقول حنقول باقي مركو رئيسه إن إلهنا كبقنا إسلام مركزنا إن حريست إلهي رجدي إن أنا كبر سنين والإلهي أكتيس كرجينا إنه إلهي يبقى لنا قصاري دونه marka waxaan uga baaqaynaa la quursanin inuu isbedel soo socdo in aad isbedelkaas taageertaan isbedelkaas oo danta iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ku jiro kaasoo soo afjarayo dhibaatadii 21 sano socday isbedel ku dhisan in mataqaanaa Soomaaliya nabad iyo dib u heshiisiin ay markale ku soo dabaalato isbedel ku saleysan in waddanka dib loo dhiso isbedel ku saleysan in dawlad قرنا أو سعادتي iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed soo celinayso isbedel ummadda u horseedayo in mataqaana ay ku fakaraan inay hormaraan inay si xor ah u noolaadaan inay cadaalad ku noolaadaan yani isbedel aynkaas ayaa soo socda marka kaas inay taageeraan kaas waa kay u soo sabreen muddo dhan ay raadinayeen sugayeen marka shacbigu waxaan ugu baaqayaa haraja dhigina naxariista Ilaahay yaa laga quufsan isbedel baa noo soo socdo hoggaanka xun mataqaan hoggaan xumidii 20 sano ay ka badan soo haysay insha Allah way soo afjarmaysaa waxaan sameynaynaa taariikh cusub waxaan sameynaynaa legacy cusub insha Allah ummadda waxaan uga baaqayaa inay mataqaan mar kale gacmaha isqabsadaan danahooda ay ilaashadaan iyo maslaxadooda meesha ku jirto isla markaas ay noqdaan dad iyaga markaa isbedel kasta oo wanaagsan oo soo socda si aad ah ay uga qayb qaataan daawadayaal waraysigaas qiimaha lahaay way baalweeldanay Dr. Ibrahim Ali Hussein oo lama markas ku fikiraaw Soomaaliya arintiya inuu soo boqol ku bedel oo haddana lama murashax oo sharxan مدوينك الصومالية أنا إلياس سعيد علي أو إلياس خليل يا ورئيس الوالدي ومثله صحافة أرلادي ما صنت إني ما صنت دانيس قاعدين سيري إني ورئيس الوالدنا جزاكم الله خير